way halkan imerini abkeen waxaan u samayn doonaa tusaale ahaan faylkeen wax ka akhriin jirnay waxaan oran jirnay maxay index.html ma la xasuustaa faylkan wax ka soo akhrinaa tusaale ahaan oo kale wuxuu ahaa index.html laakiin EJS uma bedeli doonaa simba way EJS way okay way gudihiisa niman doonaa HTML5 ku qoran jirnay si fiican loo xasuusto waxaan iska samaysan doonaa tusaale ahaan class aan ula baxo flags container okay wait container kaygan gudihiisa waxaan ku samaysan tusaale ahaan oo kale saddex dhif wait dhiftayda koobaad waxaan soo gashan doonaa tusaale ahaan oo kale h1 baan hadda soo gashan book1 baan u bixin dhif labaad baan samaysan iyadana tusaale ahaan h1 baan u samayn book2 baynu bixin example dhif saddexaad baan samaysan tusaale ahaan iyadana waxaan u bixin h1 baan u samayn waxaan tusaale ahaan waa book3 warqad css halkan ku xiri doonaa markaa maadaama warqadu aynu inoo sheegnay waxaan oran doonaa link kadibna waxaan oran doonaa tusaale ahaan style.css baad noogu xidhi waxaan tegi doonaa pagekeena tusaale ahaan public ah waxaan ku samaysan warqad yar oo css ah waxaan oran doonaa tusaale ahaan warqadayda waxa la yiraahdaa style.css waxaan samaysanay class la yiraahdo maxay flags container classkeenu yeedhi displaygiisa waxaan oran doonaa habku soo muuqan doono waxaad nooga dhigi doontaa maxay mid flags box sidoo kale waxaan leenahay flagaska waxaan u baahanay waxaa noogu jiray saddex dhif ay noogu jiray dhif koobaad dhif labaad iyo dhif saddexaad soo saama waxaan oran doonaa waxaad geysaa glasskan tusaale ahaan la yiraahdo flags container markaad ka baxdid eed gashid dhifta ku xigta waxaad samayn doontaa ses noogu samee marka width baynu samayn tusaale ahaan balac balaceed waxaan oran doonaa tusaale ahaan ama marka hore padding baan iska isticmaalo paddingkeeda waxay leenahay tusaale ahaan 20 pixel okay right marginka kala go'i doonaan dacallada macniinta isku jiri doonaan tusaale ahaan oo kale waxaan oran doonaa waxaad ka soo qaadaa in 5 pixels ay yar kala go'aan okay way background color si aynu ogaano midabada yihiin tusaale ahaan oo kale waxaan oran doonaa waxaad nooga dhigi doontaa iyaga blue calaamado yar blue aad nooga dhigay boxka okay flags container keenan isaga displaygiisa flags baan ka dhiganay si aynu uga yar shaqaysiisanay intaas ku xidhna leenahay abkayga waxaad oran doontaa maxay waxaad isticmaashaa marka hore const leeyahay maxay express soo saama right express ku xirgaar gareynay maxay la isticmaalo maxay isla express const yaro wixii noo sameeyay ab la yiraahdo wixii la mid yahay maxay express boardkayga wuxuu la mid yahay tusaale ahaan oo kale 3000 geedka wuxuu wax ka soo heli doonaa baan leeyahay intaana soo yar koobo okay tabtana waxaan oran nagu keentay aan taabtay abbay leenahay waxaad samaysaa get markuu sameeyo macnaheedu markuu helo eedana capital baan ka dhigan si ay isku ka mid noqdaan qofku macni root ugu horeeyo markuu soo galo function kan laba shay uu diri jiray request iyo response right kadibna waxa leenahay response wuxuu sameyn doonaa render wuxuu wax ka soo akhriyaa maxay tusaale ahaan page-keegan aanu samaysanay okay waxa la yiraahdaa maxay index waan save garaysanay kadibna halkan dambe waxaan ku sheegi maxay port numberkii ka soo kici jirnay soo saama abbay noo jiray maxay wuxuu lisan garayn doonaa tusaale ahaan oo kale maxay 3 halkan hadda wax database weynaa yeedhin console yar aan sii raacino si aynu ogaano inuu inoo shaqeynayo waxaan oran doonaa tusaale ahaan oo kale use port maxay isticmaal 3000 somehow ama tusaale ahaan 5000 halkan 5000 nooga dhigay way save garaysanay terminalkii ka soo kicin jirnay soo saama ya
view chinkii baa dhiman free delay baa saa computerka ku jira burca kasoo kacayaad moodaa ab waxay leenahay sidoo kale set waxaad ka dhigtaa maxay set waxaad ka dhigtaa view chinkaad isticmaashid maxay view chinkan muxuu lamid noqon jiray EJS free kadibna way soo kicin xaaji node bay nidhi waxaan u baahanay failkayga loo yaqaano maxay ab kadibna waa la inoo kicin doonaa still waxbaynu ilownay up is not defined that this must be covered up okay clear failka magaciisu waan yar yeerayaa test baan sameynaynaa wuxuuna guri waxaad isticmaali kartaa maxay 5000 soo saama just markaa loo kalo si 5000 isticmaalo waxaan leenahay local host imisa 5 soo saama slash wuxuu noo soo saaray maxay book 1 book 2 iyo maxay book 3 soo saama backgroundadii muu qaatay css ka waxa ka maqan maxay inaan idhaahno waxa isticmaashaa maxay public kadibna waxaan odhan jirnay ab wuxuu sameynayaa maxay use wuxuu isticmaali doonaa maxay express dot static kadibna waxaan sheegi jirnay folderkeena soo samaysano maxaa la idhaha public safe refresh hadday samayno inoo ega node kale aan soo istaajino control c mar labaad kac dib inoogu taaba marka waxaan haysanaa maxay 3 box soo saama boxeskan xaaj sawireen kaysan jirnay ma la xasuustaa sawireen ku soo diri si aan sawir ugu soo darno symbol waxaan oran doonaa marka hore waxaan iska tagi doonaa html-kayga let me download iskaan tago si aan sawireen ugu soo yar qaado okay computer this pc download iskii tagi halkan tusaale ahaan sawir kalaan haystaa I will get it waxaan leeyahay waxaad ii dhigtaa folderka publica la yidhaha book kale raadin haddaan heli karo tusaale ahaan oo kale somehow how buugaag kale ma helayno kanuma 3 jeer soo celinay simple si aan u yar aragno si aan sawirkeena soo gashanay maxay isticmaali jirnay index EJS keena waxaan ku darsan doonaa maxay halkan dhifta uma oran doonaa maxay waxaad soo gelisay img kadibna sawirkayga sheegi doonaayo wuxuu ku jiraa tusaale ahaan oo kale meesha kadibna waxaan oran doonaa sawirkayga waxa la yiraahdaa maxay hawale.png.gbg waxaan oran karnaa intaan 3 jeer inoo koobiyey si aynu aragno sawirku markuu soo galo siduu noqon doono okay waan yar istaajinay control c node moon baan iska isticmaalay hadda wixii ka dambeeya ab baan leeyahay markaa waxaan eegaynaa in sawirkeeni inoo soo galay simple waxay noo soo galay maxay sawirkeenii de arbeyna saahayn shaashadeenu 100 haddaan ka dhigno waka
mar hadday sidan tahay waxaan odhan karnaa tusaale ahaan oo kale shayadeenan widis baynu samaynay ballac way saddex sawir soo maa 300 markaynu qaybinay maxay noqon jireen 3% soo saama way intan aan ku darsaday kadibna refresh baan sameeyay okay ashankon positionkii way qaateen soo saama boxeskii positionkii way qaateen oo dee sawirada in la weyneeyo baa noo hadhay mana saahay sawiradeena si aynu weyneyno waxaan isticmaali jirnay haddaynu xasuusano classka css kan sheegi jirnay dhifta ka dambeysay sheegi jirnay imt-ga kasii dambeeyaan sheegi jiray kadibna waxaan leeyahay sawirka balliciisa waxaad ka dhigtaa tusaale ahaan 100% cabirku macnihi intuu leeyahay inaanu ka yaraan de way intan hadday refresh sameeyno again waka waxaan haysanaa maxay saddex sawir oo waaweyn soo saama cabirka inta waynu ka yareyn karnaa waajib maaha inaynu 100 isticmaalo laakiin ujeedadeenu waxay ahayd maxay in shaygu shaashada uu leekaan karayo still macallinkii css taray intan marka sameeyna xaaji buukoon baa inoogu qoran waxaan odhan doonaa farta si aynu bedelo maxaan isticmaali jirnay color waxaan ka dhiganayaa markaa tusaale ahaan oo kale cadaan white f5 farti waxay noqotay maxay cadaan soo saama waxaan samaysan doonaa haddaba database yaroo i haysaa sawirkayga iyo magaciisa ka soo qaad qolada sahan book baa adeegan inaga rabta ama project aan samaynaynaa sahan book baynu samaynaynaa marka dee sahan book aad iibisa soo saama marka waxay soo qoraan waa buuga magaciisa iyo qiimihiisa iyo cidda qortay soo saama way database keenina geeya okay local host test uma sameynaya inuu shaqeynayo macnaheedu halkan aan saam ka soo kicin okay labadan hore aynu start gareysan jirnay soo saameyn okay wait as remembering waxaan samaysan doonaa database halkan aan ka samaysanayaan waxba uma baahnay just wait waxaan oran doonaa waxaad noo samaysaa conisier oo la idhaha maxay mysql kaasi wax ka soo qaadan jiray maxay requirekiisu ahaa in wax ka soo qaata isla maxay isla mysql waxaan samaysan jirnay haddaan sidoo kale xasuusano conisier oo la idhaahdo maxay body bearser ba iska raacsan si aynu hadhow u isticmaali karno body bearserkeenu spaceka waan ka saaray wuxuu require gareyn jiray maxay in la isticmaalo isla maxay body bearser okay intan markaan isticmaalo connection bay samaysan jirnay okay connection si aan u samaysano waxaan odhan jirnay waxaad noo samaysaa tusaale ahaan conisier oo la idhaha maxay con oo connectionka noo haysa connectionkaygu wuxuu la mid yahay maxay mysql waxay noo samayn doontaa create connection kadibna waxaan odhan jirnay waxyaabahan u baahanna waxaa ka mid a tusaale ahaan hostiga isticmaalaa wuxuu ahaa local hosti sidoo kale waxaan isticmaali jirnay maxay userkeenu wuxuu ahaan jiray root waxaan isticmaali jirnay passwordkeena waxaan odhan jirnay waa empty kadibna waxaan odhan jirnay connectionkaygana hadduu samaynayo maxay isku xidh hadduu samaynayo com.connect hadduu samaynayo hadduu connect samaynayo waxaan odhan jirnay maxay functionkani muxuu soo celin jiray waxaan leenahay waxaad soo celisaa maxay kadibna waxaad tidhaahdaa maxay functionkeenu wuxuu odhan doonaa if haddii macnihii error la helo waxaa la samaynayaa maxay
through haddii kalena waxaa la soo saari jiray tusaale ahaan oo kale connectionkii uu shaqaynaya soo saama markaa waxaan odhan jirnay maxay connected safe bay nidhi okay terminalkan soo saari kii horena waa kill baan samayn control c waxaan ka yar wareegaan rabaa in here okay projectkan videosku ku jira waxaa la yidhaahdaa sahan book halkan terminalka inoogu fura sidaan arki karana waxaan qorayno oo dhan iyo sida wax u shaqaynaya node moon bay leenahay failkeen wuxuu ahaa maxay soo saama wuxuu nagu yidhi maxay connected databasekeena hadda u shaqaynaya soo saama marka waxa ugu horreeya samayn jirna waxay ahaan jirtay maxay inaynu database create garaysano dee marka si aynu database u create garaysano waxaan leenahay app wuxuu noo samayn doonaa tusaale ahaan oo kale banaankaan uga baxo sorry waxaan leeyahay app waxaad samaysaa tusaale ahaan dotcase waxaad samayni waxaad wax ka soo heli doontaa tusaale ahaan oo kale db db-ga iyaguna wax kala lama mid aha wuxuu soo celin doonaa maxay rigosio response taasoo kadibna waxaan leenahay if ama const noo samee constigeena waxaan nula baxnay db kadibna waxaan odhan jirnay maxay waxaad noo samaysaa create database kadibna waxaan sheegi jirnay databasekeena magaciisa sahan baa la idhaha intan hadday samaysana xaaji waxaan leenahay con wuxuu samayn doonaa maxay wuxuu la xidhiidhi maxay queryga iyaguna wuxuu la shaqayn doonaa db laba shay unbay soo heli jirtay error resultii hadda waa iska dhaafiba maadaama yar ordayno kadibna waxay leenahay if haddii macnihii error la helo waxaa lasoo bandhigi doonaa maxay errorka haddii kalena console.log waxaan la odhan tusaale ahaan oo kale database created halkan dambana response baan kasoo celin doonaa si aan u yar wareegin response baan leenahay .send waxaad soo dirtaa maxay database created intaanay samaynay portgeenaynu bedeli xaaji /db baan ka dhiganaa marka hore maxaa laynagu yidhi database created soo saama mar haddii databaseka laynoo sameeyey maxayn dooran jirnay codekeena sarayn ku noqon jirnay halkan waxaanu kusoo dirsan jirnay maxay database kadibna database-kayga magaciisa tusaale ahaan waxaa la yidhaahdaa sahan arbayna taas ka ahayn optionka ku xigaa wuxuu ahaa just waxaynu create garaysan jirnay maxay table day okay well right yeah symbol intaan iska qaadanaya xoogaa si aan waqtiga u yar save garayno halka waxaan leenahay waxaad ka dhigtaa maxay table halkan maxaan odhan jirnay create waxaad noo samaysaa bay leenahay maxay table kadibna waxaan sheegaynaa maxay tablekeena tusaale ahaan oo kale waxaa la yidhahdaa books book kasta wuxuu yeelan doonaa id waa int waa primary key waa auto increment si aan u yar kala gooyo double quote waa iskaga tegi hadda single quote baan isticmaali ama calaamadda yareed ee tildada ee ugu horreysay tilda waxay ka horeysaa number 1 waxaan leenahay markaa incrementable id buu yeelan doonaa book wuxuu yeelan doonaa tusaale ahaan magaciisu wuxuu ahaanaya tusaale ahaan oo kale farkar ilaa 200 xarafa wuxuu yeelan doonaa tusaale ahaan oo kale outer cidda qortay outerkuna waxaan leenahay tusaale ahaan isaguna waa farkar ilaa 200 xaraf symbol sidaas kaga badsano wuxuu yeelan doonaa tusaale ahaan bookgeenu tusaale ahaan oo kale price soo saama pricekiisa waxaan odhan doonaa tusaale ahaan waa float maadaama uu point qaadanayo waxaan odhan doonaa tusaale ahaan 10 god oo kale
sidoo kale waxaan leeyahay wuxuu leeyahay price discount baynu mararka qaarkood samaynaa soo ma taqaanaan sell price bay leenahay hadduu qiimo hore lahaayo qiimo dambe samaynay sell price bay isticmaalay isagana float baynu ka dhigan doonaa float isagana tan baan odhan just intaasan sameeyey okay wait variablekan horeynu bedeli doonaa waxaan u bixin doonaa maxay TP halkan waxaan odhan doonaa waxaad isticmaashaa maxay TP waxaana layna odhan doonaa maxay table created halkan waxay noo soo noqon doonaa maxay tusaale ahaan oo kale table created arrintaas iska fudude just dee querygan uma inoo ran garaynayaa waxaan odhan doonaa maxay db baad negeysaa hadda waxaad negeysaa maxay table waxa laynagu yidhi table created terminalkeeni haddayna eegnana eega isagaa dee inuu isaguna saxan yahay buu inoo sheegaya ma ogtay halka ugu dambaysa un inoo eega waa inuu nagu idhahdo table created haddii kale error soo celiyana waxbaa qaldan marka wuxuu igu yidhi syntaxkaaga waxbaa qaldan xaaji near at line 3 primary auto increment meelahan hubin in here no database ko caadi hadda primary key auto increment save day let's see still wayna yar haystaa waxaan samayn karaynaa simple halkan hore laynagu yar haysto iskaga tegi simple wayn xallin in here auto incrementigana ma iska yar saari just axmed wax yar ad arkaysaa save bay leenahay again inoo eega mar labaad queryga control C yeah okay test create table books create table ada create table ada books kaasoo leh id yeah author taasi laakiin mushkilad maahan filaya anu wax kale querygan eega create table baan nidhi price of floata author of arkara I don't know sell price of floata tell the symbol wax siya ma arkayno in here symbol aan yar samayno xal degdega double codekeyga aan iska isticmaalo maybe problemkaygu in meelaha yahay hadduu doono sell price
SPCA meel kaga jiray inaan arkayn halkana double quote mushkiladda ugu weyn ee dhacday baan idin sheegaya assalaamu calaykum halkan ugu horeysa table-ka marka furtay maxaa soo furtay qoyste soo saama qoyskeeni maxaan u xidhan weyna ma halka ugu dambaysa looga baahnayn dee ilduufka soo qabtaay okay way just hadda table-keeni waa lainoo create garayn doonaa connected way okay still syntax error baa jira primary-ga maxaa dhiman keygi yeah primary key last thing table-ka ina dhaaf dhade nagu raagibay okay way hadda waa maxay table created soo saama query-ga ku xigeen samayn jirna wuxuu ahaa maxayna samayna maxay inserted soo saama ay inserted sidaynu samayna maxay isticmaali jirnay inserted sidaynu samayna maxay samayn jirnay remember gareeya internet mayna soo qaadan jirin ab waxaan la odhan jirnay tusaale ahaan waxaad samaysaa maxay get marka wax meelaan wax ka sameeyo ma sameynaya insert keliya taan samaysan doonaa dibaddaan ka gelin doonaa xogta macnihii waxaan samaysan request iyo banaanka uga baxdhade request iyo maxay iyo response kadibna waxaan odhan jirnay maxay conist yar noo samee soo saama conistigeenan insert baynu bixinay tusaale ahaan oo kale kadibna waxaan nidhi insert into maxay ahayd book soo saama maxaa la gelinayaa valueskan soo socda bookayga ID-giisu waa wan xaaji magaciisana waxaa la yidhahdaa tusaale ahaan hawaale waran tusaale ahaan outer buu lahaa outerka waxaa qoray allahu naxariistay hadraawi somehow okay waxaan leenahay tusaale ahaan oo kale maxaan kaloo lahayn price buu lahaa soo saama waa $15 tusaale ahaan waxaan ka dhiganayaa sidoo kale aan kusoo darsanayaa sell price hadda macnihi discount markaan samayno waxaanu kaa siinaynaa 14.5 maxaa kaloo buuggeenu lahaa intaasuu soo saama ID-gi waan samaynay buugga magaciisii baan sheegnay ciddii qortay baan sheegnay qiimihiisa aynu ku iibinaynay sheegnay discountka markaan samayno qiimaha qofka laga samaynaya ama sell price-ka ayaan sheegnay soo saama kadibna maxaan odhan jirnay con waxay samaynaysaa maxay query bay la xidhiidhi query-geenuna wuxuu samayn jiray maxay wuxuu la xidhiidhi doonaa variable-kan la yidhaha insert laba shay buu soo heli jiray error ama maxay result waxay leenahay if error haddii error la helo waxaa la odhan doonaa maxay through error haddii kale console.log shaashadeedu waxay soo celin doontaa tusaale ahaan oo kale data waxay noo soo celin doontaa daatadiini waa la insert gareeyay oo xogtiini waad xaraysan xaaji intan markay samayno browserkuna si uuna u wareegin waxaan odhan doonaa maxay response wuxuu soo celinayaa tusaale ahaan oo kale .send wuxuu soo celin doonaa data inserted safe slash insert waan isticmaalaya soo saama insert aan isticmaalo mar kale mushkilad baa dhacday let me go to my database okay database-keena waxaynu ku yar darsanaynaa hal shay oo ah buugga sawirkiisa ila buugga waxaan u baahanay sawirkiisa lasoo daabaco soo saama marka posterkii ama book image baynu odhan doonaa si aynu column ugu darnay maxaynu odhan jirnay alter php admin
maanta aad buu raagaya waj hurda la'aan buu tirsanaya malaha somehow arrintan ma sugi karaya waxaad samaysaan simple xoogaa samirkuu soo yaraanaya ma ogti simple waxaan samayn doonaa tablekeenan magaca yar baan ku darsanay bookis buu ahaa soo saama 2s baan ka dhigi doonaa halkan ugu dambaysa kanay samaysanana 2s baynu ku darsanay simple halkan ugu dambaysa waxaan odhan doonaa waxaad noo soo saartaa buugga sawirkiisa imagekiisa waxaanad nooga dhigi doontaa tusaale ahaan oo kale text image waa magaca ama waxaan odhan karaa haddaad xaaji ka shakisan tahay sawir data typekiisina maxaan ka dhigay safe mar labaad markaa insert baan ku noqon doonaa maadaama halkan inagu yar raagtay markii hore dee waxaynu ku noqon table waxaa lainoo create garayn doonaa table la yidhaha maxay hadda tablekeena dambe haddaynu halkan arkayno refresh aan sameeyo database ahaan la yidhaha halkan inooga raadiya wad haysaan soo markaysaan gudaheeda haddayn furnana waxaa ku jira maxay book 2s le iyo maxay book iskeliya soo saama markaa kan 2s le image kale baan isticmaali doonaa labada database way sideen xog usoo insert garayno waxaan leenahay insert bay ku jirnay xogtaynu diiwaangelinay waxaanu sheegnay maxay halkan maxaa ka dhiman buugga maxay dee sawirkiisii dee mayna saahayn way halkan imageskaygaan ku yar tusayaa publiceen waxay noogu jira maxay hawaale soo saama way publica waxaan ku dhex samaysan xaaji folder kale publica marka joogo waxaan iska samaysanaya folder la yidhaha images way hawaalena waxaan geyn doonaa gudaha imageska waa hawaale dot gbg soo saama magaciisu baan halkan ku qoraya bes hawaale dot gbg waan save garaystay kadibna commandkan hadda uga yeedhaynaa waxa weeye insert baynu u baahanay waxaan leenahay waxaad noo samaysaa maxay insert way data inserted baa laynagu yidhi terminalkeenana haddaynu eegno waxaa laynagu yidhi data inserted soo saama halkeenii kale inoo eega xaaji bookiskeena waxaa inoogu jira maxay book idgiisu wan yahay hawaale waran baa la yidhaha hadraawi baa qoray waa $15 qiimaha dambe iibku waa $14 iyo badh sawirkiisana waxaa la yidhaha maxay hawaale dot gbg soo saama waxaan yar samayn buugaa kalen yar raadi okay meelahana ka soo helayaa open file location sawirradan waaynu rabnaa inaan isticmaalno saddexdooda baan soo jiitay koodhkeena dhex keennay imageskaan dhex dhiganayaa markaa rename sax ama tusaale ahaan oo kale sahan 1 rename sahan 2 okay isaga laftarkiisiba sahan 1 kan kale ku xigeenagee sahan b iyo sahan soo markaysaan in here intaasaan haystaa okay I think sahan 1 baa sawira baan filayaa let's see isagana insert garayno buugga labaad waxaan leenahay tusaale ahaan idgiisu waa 2 waxaa la yidhaahdaa maybe
sorry waxa la yiraahdaa somehow book kale magaciisa sheega ya salaada wade ay waxa qoray sheekh sagal Allah una xariisada ma ka deena okay ay sawirkeedana halkan ay leenahay buuga sawirkiisa tusaale ahaan oo kale buugan sawirkiisa waxa la yiraahdaa sahan 1 formatkiisu waa maxay TF IF soo sama way buugan waxa siinaysaa islaantu 13 bar qiimaha u dambeeya way waan save garaysanay isagana insert baan niri simple another mar labaad baan insert niri waa inserted table-kayga macnaheedu laba qof ay noogu jira laba data soo sama book saddexaad baan ku darsanaa maadaama inuu saddex sawir meesha ku haynay way isagana waxa leenahay waxa noo isticmaashaa bookan 3 nooga dhig sahankii shuuciyada somehow waxa qoray wadaadka la yiraahdo Axmed oo kale waxaan real name aha waan iska tacbiirinayaa Axmed baa qoray Axmed Cabdi Allah u naxariiste ay sawirkan waxa la yiraahdaa tusaale ahaan sahan B sahan B .gbg okay Axmed qiimihiisa waa buugiisu waa $13 marka wax discount ma leh markasa ay not null ina ka soo dhigtay ma hubo laakiin waan save garaystay mar labaad browserkayga waan ku noqday insert baan idhi terminalku ma dee saxda ii sheega moogtay isaguna wuxuu nagu yidhi data insert saddex sawir baan xaraynay meena saahayn arrintaa ma la garanaya waxaan tegi doonaa code-keeni baan mar kale ku noqonay waxaan u gudbi doonaa qaybta la yiraahdo select in wax la soo akhriyo waxaan oo dhan waan isticmaalayaa maanta waa get getkan wuxuu sameynayaa maxay selectiga wuxuu soo heli doonaa request ama maxay response waxaan leenahay request ama response hadduu soo helo waxaan rabnaa const yar noo samee constigeenan hel baan ula baxay berigiiba waxaan odhan doonaa waxaad wax ka soo heshaa maxay wax kasta oo ku jira maxay books kadibna waxaan odhan jirnay kan waxay la mid ahaan jirtay kanaan ku shubnay haa saxsanay kan query-gaygu wuxuu la mid yahay maxay hel hesheenuna waxay la mid ahaan doontaa daatada si aynu aragno ama waxay heli error ama maxay result kadibna waxaan leenahay if macnihii xaaji haddii error la helo maxay waxaa la samayn maxay waxaa la sheegay halkan waxay ka qaldan yihiin soo saama haddii kalena console.log shaashadda waxaynu ka rabnaa inay noo qabato maxay shaqada loo yaqaano resultiga in xogta ay soo bandhigto intan markay samayno marka saddexaad waxaan odhan doonaa response-ku dot render wuxuu wax ka akhrisan doonaa page-keyganu samaysanay html-ka ahaa ee la odhan jiray index .ejs buu ahaa soo saamaheen failkeenaasi wax ka soo akhriyaysaa macnihii intan markay wax ka soo akhrisato kadibna waxaan isticmaali jirnay objective aan isticmaali jirnay soo saamaheen tusaale ahaan waxaan odhan doonaa resultiga waxaa ku jira xaaji haddaad aragto wuxuu la mid yihiin waxa result inoogu jira annaga variable-ka bedeliba maayo macnihii browserkeeni baynu ku noqonnay waxaan nidhi waxaad noo samaysaa maxay select markay nimid wuu inoo gudbiyey pagekii soo ma arkayno laakiin ii halkan iyaga maxaa la soo helay buuggeenii koowaad kii labaad iyo maxay kii saddexaad saddexdeenii buugba waa la soo bandhigay soo saama waxaan rabnaa un keliya in halkan buugaagteeda lagu soo bandhiga annaga arma iska koobantahay si aynu soo bandhigno simple waxaan odhan doonaa
we need to go here waxaan tegi doonaa codekayga waxa wax soo bandhigaysay halkan saddex dhif baan isticmaalay soo laba xasuusto waan iskaga tegi hal dhif baan haystaa ma la arkaya waxaan odhan doonaa waxaanu baranay for each inaynu isticmaali karno maalintii ugu horreysay kadibna waxaan odhan doonaa waxaad samaysaa maxay for each each item macnihii item kasta oo meeshan ku jira haddaad aragtid shaqadan soo socotaad noo qabanay curly braceka halkan waan ka xidhan doonaa somehow halkan waan ka xidhi doonaa intan haddii la sameeyo bay leenahay waxaan rabnaa in naloo soo bandhigo sawirkaygii de maynaa saga u baahnayn maynaa sawirradeenu u baahnayn kadibna halkanna waanu yeedhi controlx simple h1 waa yar bedeliyo h3 baan ka dhiganay si ay u yar yaraato kanna waan yar comment garayn hadda buu kastaa muxuu lahaa buu kastaa wuxuu lahaa maxay magac dee mayna saa ahayn databaseken wuxuu ahaa id magac iyo outer name outer soo saama ahayn waxaan rabnaa buugga magaciisa inaan heli karno marka ugu horeysa simple calaamadaheeni baan iska furan doonaa EGS-ka kadibna waxaan leenahay waxay la mid yihiin variablekan itemen halka sare ku qeexay oo lasoo helay maxay magacii shayga kadibna maadaama for each ku jiraan waxaan u baahanahay in mid kasta lasoo helo dee refresh baan nidhi select error buu igu yidhi macnihii waxaad hubisaa xaaji EGS-kaagan aad qortay in aad dhammaystirtay curly braceskeenna wuxuunbaa meel ka furan oo inagu xidhnay in here for each item maxaynu misgaraynaa talow tanay leedahay tanna tan okay curly braceskan bahashana farsama maxaa diraysaa okay how about haddaan halkan sanidhaa okay safe EGS listiga wax yar qaldan yihiin lada sax ayna saxna markaa okay EGS-keena chegraya variablekeenu result soo maahayn for each bay leenahay waxaan u baahanay function yar loo yaqaano itemkayagu sidan u noqon okay waka wuxuu soo saaray maxay hawaalo waran salaada iyo maxay saankii shuuciyadda kaliya wuxuu soo saaray saddexdeeni maxay magacdee mayna saa ahayn waxaan u baahanay hadda in lasoo helo maxay simple linekayga commentiga aan ka qaado kadibna waxaan leeyahay waxaan u baahanay halkii sawirka halkay ka ahayd folder baan soo samaystay publica igu jiro la yidhaha maxay images soo saama kadibna halkan variablekii baynu qeexi variablekeena waxaan leenahay wuxuu ku jiraa maxay itemka markaan joogno waxaa noogu jira waxa la odhanayay sawir ma xasuusanaa intii baan u yeedhnay refresh bayn samaynay maxaa soo baxay sawirkii koobaad sawirkii labaad iyo maxay sawirkii saddexaad saddexdeeni sawir dee minaysan ahayn koobaad waa kan labaadna waa kan
saddexaadna waa kan sawirada dee sideeban haddaba u odhan karaa xaggan mara sidan way is hoos yaalaan moogtiin waxaan rabnaa in dhanka kale ay u gudbaan ya css-ka de soo saama way flux direction baan sameeyey ama direction baan idhi flux direction waxaad ka dhigtaa tusaale ahaan bal row inkastoo row ahaan soo bandhigin still habkiisii buu haystaa okay waynu sixi doonaa laakiin hadda waxaan haynaa maxay saddex sawir de soo saama way saddexdeena sawir maxaynu uga baahanay maxaynu uga baahanay saddexdeena sawir maxaynu uga baahanay ee kala hadhay okay row u qaadan waayo be okay okay wait already saddexdan sawir waxaan u baahanay maxaan soo raacin karnaa abuu kasta muxuu lahaa price iyo maxay qoraa iyo maxay kale sell price soo saamahayn wait saddexdii shay si aynu soo bandhigno dee iyagana maynaan halkan hoose ku soo bandhigi karin simple waxaan odhanaa waxaad samaysaa wax kale ha soo mayne halkan waxaad noogu soo bandhigtaa tusaale ahaan oo kale span yar span yar waxay ahayn doontaa tusaale ahaan markaan halkan joogo shaygayga waxaan u baahanay itemkayga waxaan u baahanay tusaale ahaan in lay soo saaro maxay outerkiisi ciddii qortay safe sidoo kale shay kasta muxuu lahaa muxuu lahaan jiray wuxuu lahaan jiray maxay price intan aan eegnay f5 outerku waayo niw laakiin xoogaa muxuu iskugu yar waalay hawaale warran wuxuu raaciyey maxay hadraawi kan maadaama css-ka yar waashay un wax kale maahe salaadan waxaa la socota maxay salaanta la yidhaha maxay sagal sahankii shuuciyadana waxaa la socda maxay tusaale ahaan oo kale axmed cabdi ismuu daba marina wuxuu sameeyey sagashanaa soo baxsatay okay somehow waa css-keena laakiin mushkiladdu waa css-ka waxay leenahay sidoo kale shay kasta item price iyo wuxuu lahaa maxay tusaale ahaan item price iyo muxuu kala lahaa iyo sell price soo saama haddaba shayada qaar maan lahayn item price iyo sell price labada laakiin haddaynu idhaahno kuwii wada lahaay oo dhan f5 ka waxaa la siinayaa maxay sell price muu lahayn moogtay keliya price keliyaata ayuu lahaa right kan maxaa la siinayaa 14.5 soo saama still sell price ki ma hayno sell price ki noo raadi ya price ka horreynay maxaa sell price ki buu hayaa marka price ka bida capital de simple hadday saasi dhacdo bidaydaasa capital ahaydo let's logic waka wuxuu hayaa maxay laba qiime waa 15 iyo maxay iyo 13 soo saama css-ka adaa ku qurxin doonaa ama bootstrap waxaad isticmaalisid laakiin labadan waxaan rabaa inaan logic yar geliyo simple logic-gan muxuu yahay waxaan leenahay waxaad noo samaysaa maxay if haddii tusaale ahaan shaygaygu leeyahay item variable-keenu soo saamahayn haddii itemkeenu leeyahay maxay tusaale ahaan oo kale sell price
qiime iiba hadduu leeyahay waxaad samayn doontaa sidan soo socota. Okay, mar kasta waa inaan xidho calaamadan yar, mushkiladana iyaduna ayna daba ordaysa moogti. Okay, halkan aynu ka xidhanaa moogti. Haddii ay sidan oo kale dhacdo macnihii waxaa dhacaya intanay noqonaysaa anaa kuu sheegaya. Price-ka qiimo dhimista keeba la yidhaha waa sell price-ka soo saama kan style yar inoogu sameeya. Text decoration-ka qoraal waxaad u samayn doontaa tusaale ahaan oo kale line through. Wait, halkan waxaan idhi tusaale ahaan si aynu u aqoonsano price, kan waxaan u sameeyey sell price. Sen waxaan u kala googeyna maxay isticmaali jirnay niyo breakte mayna saahayn ha ilaawina. Way else else haddii kale waxaad soo bandhigi doontaa bay leenahay oo intan oo bilaa line through ya. Haddii macnihi wax qiimo dhimisa aynaan samayn waxaanu soo bandhigi doonaa intan oo bilaa qiimo dhimisa line through-ga ka saar. Save. Halkan waa in curly brace-kayga aan xidho. Halkanna waa ina soo xidho. Calaamadaha waad inaga ilaalin doontaan insha Allah. Shaqo kale ma hayne. Save. Okay, wait, refreshment sameeyna. Macni waxaan yar rabnaa horta refresh aan sameeyo. Yar kale eega. Buugaygan koowaad waxa la yiraahdaa maxay? Axmed buugaygan koowaad waxa la yiraahdaa hawaalo waran. Qiimihiisu soo ha. Hadda laakiin maxaan ka dhignay 14.5. Way buugaygan kale waxa la yiraahdaa tusaale ahaan oo kale price-kiisu 15 buu ahaa. Soo saama hadda laakiin maxaa la inooga dhigay 13. Calaamadda yar ee sameeynay wax kale ma aha, waa logic ahaa maxay haddii shayga qiimo dhimis leeyahay waxaad samaysaa sell price-ka laynaga mari price-kii hore jiray. Inta badan website-yadana waan ku aragnaa kan Axmed ma laha wax sell price 13 baa la siinayaa waxa la soo muujin maxay 13kii. Idinkaa badsan doona oo sii kordhin doona oo Allahumma salli ala Muhammad baadhin 200 pix. CSS-yada idinkaa sixi doona database-ka sheekh. They come from database. Sawirradii maxaa ku qornaa ya taga si waa laakiin sawirka magaciisa aan ku qoray iyo formatkiisa soo saama. Marka hadda waxaan la soo akhriyaa wax kale ma aha waxa la soo akhriyaa sawirrada eeg. Database-ku ka soo akhrisanaya waxaan nidhi item-ka waxa ku jira waxa soo akhrisataa maxay magaciisa, waxaad ka soo akhrisataa item-ka maxay sawirkiisa. Eeg variable-kan item wuxuu la mid yahay wuxuu ku jira maxay result. Soo saama result-gana halkeen ku samaysanay result-gana waxaan nidhi select-ga marka la sameeyo macnihii books-ka marka waxa ku jira oo dhan la soo baadho waxa lagu shubi doonaa maxay variable result la yiraahdo. Mana sahay taaso database-ka ku jiraan in here waa kuwan database-ka haddaan ku tuso. Hay folder images la yiraahdo halkan inooga samaysan. Images-ka waxa ku jira sawirradaynu database-ka geynay oo dhan. Marka sawirra database-ka la geynayo waa in sawirrada halkan inoogu kaydsanaadaan. macnihii si sawirka magaciisa loo soo heli karayo database-ku ka soo akhrisanaya gudaha database-ku ka soo akhriya. tusaale ahaan oo kale buuggan maxaa la yidhahaa hawaale soo saama rename baan ku sameeyey iyaga had rabaan idhi
soo markaysid just EGS keeni waan ku noqonay mar kale select buugi ma haya oo maya soo saama wuxuu iswaafajinayaa magaca database-ka inoogu jira iyo magacan images-keena inoogu jira inay same yihiin ya marka sawirkaaga dee marka database-ka u diraysid waxaad sheegaysaa markasta sawirka magaciisa mayna saahayn marka maadaama sawirka magaciisa sheegayno halkana waa in sawirka magaciisa inoogu kaysanaado magaca halkan kuugu jiro umaad odhan doontaa database-ka ku save gareed bas marka just kan unbaa lasoo akhriyayaa oo database-ka laga baadhaya haddaynu idhaahno idinkaa wadan doona haddaad image u baahataan markaa saasaad ugu soo ridi kartaan any question wax kaloo adag sheega